gudoomiyaha komishanka la dagaalanka HIV/AIDS Maxamed Daahir Khayre oo weheliyaan saraakiisha u sareysa hay'adaasi ayaa maanta hor yimid golaha wakiilada Somaliland fadhigani maanta yeesheen xildhibaanada golaha wakiiladu ayuu shir gudoominayay gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro waxaana xildhibaanadii fadhigaasi ku sugnaa ay warbixin kaga dhageysteen gudoomiyaha komishanka la dagaalanka HIV/AIDS Maxamed Daahir Khayre waxaan uga waramay xaaladda guud ee xilligan halka marayo farasidaha HIV isagoona ka waramay tirkoobyadii u dambeeyay ee la sameeyay saankii ugu horeeyay waxa la sameeyay 1999 isku celcelinta ama prevalence-ka waxa la yiraahdo wuxuu ahaa eber dhibic 9 ama 0.9% taasoo macnaheedu yahay marka population-keena laga soo qaado 3 milyan iyo 500,000 waqtiga in la saadaalin karayo inay tiro dadka ka tirsan oo ilaa 1,500 qof ay la noolaan karaan xanuunka waa saadaalin weyn sahanka labaad waxa la sameeyay 2004 prevalence-ka ama maartay cudurka waxa markaa uu ahaa 1.4% ama 1.4 boqolkiiba kii xigay waxa la sameeyay 2007 waxa asagana uu marayay 1.3 ama 1.3% hadda aragto 1.4% iyo 1.3% runtii marka xagga statistics laga eego waxba difference ma dhaxayaan wax yaani la oran karo ama uu dhacay ama uu yaraaday ma jiro oo dhaxaya waxa ugu dambeeyay sahanka ugu dambeeyay wuxuu ahaa 2010 waxa kaan natiijada la arkay waxay noqotay 1.1 ka laftiisa marka xagga statistics loo eego la qiimeeyo inkastoo figure-ka aad oranayso 0.2 buu hoos u dhacay laakiin runtii wax significance ama wax qiimo leh oo maartay la oran karo maartay hoos buu dhacay ama difference buu dhaxeeya ma jiro cudurrada maartay lagu kala qaado galmada dadka cudurrada galmada lagu kala qaba isla markaana HIV-ga qaba intaas oo sahanba marka la isku celiyo 5% bay ka sareeyeen ama ay ahaayeen cudurrada galmada oo kaliya 2004kii 12.3% ay ahaayeen 6.3% na waxay ahaayeen 2007 sanadkii ugu dambeeyay saankii la sameeyayna 7.0%. dadka TB-da qaba hadiya jiraale xanuunkani wuxuu la dagaalamaa awoodda jirka markay hoos u dhacdana waxa ka faa'iideysta cudurro la yiraahdo opportunistic diseases oo TB-du ka mid tahay sidoo kale waxa uu sheegay gudoomiyuhu inay dhibaato badani ka haysato dadka uu ku dhaco farasidaha HIV in aanay sida ugu dhaqsaha badan ula soo xidhiidhin xarumaha caafimaadka iyagoo ka baqa qaba inay takoor kala kulmaan bulshada ay la nool yihiin ugu dambeyntiina xildhibaanada golaha wakiilada Somaliland ayaa su'aalo weydiiyay gudoomiyaha iyo mas'uuliyiintii la socotay ee ku wehelinaysay waxaana halkaasi mas'uuliyiintaasi si absami uga jawaabeen dhammaan su'aalihii ay weydiiyeen xildhibaanada golahu Mukhtaar Ismaaciil Cali Somsa TV Hargeysa